dib uga soo kabashadii burburkii laga dhaxlay dagaaladii dabayaaqadii 80aadkii iyo kuwii horaantii 90aadkii waxay Soomaaliland soo martay marxalado kala duwan taasoo sababtay inay Soomaaliland ka soo kabato dhibaatooyinkii iyo waxyeeladii dhaqan-dhaqaale waxbarasho iyo mid caafimaadba madaxdii kala duwaneed ee Soomaaliland soo martay ayaa waxa uu mid waliba soo gaarsiiyay geedigii nabadda iyo horumarka bulshada reer Soomaaliland ee ka soo gudubtay marxaladii adkaa ee loo soo maray gooni isu taagga xornimada iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland sidaynu wada ogsoonahay maalgashiga ayaa ah unugan ugu muhiimsan ee sababa kobaca dhaqaale si aynu wax uga ogaano muhiimadda uu leeyahay maalgashigu dal walba ayaa waxa ka waramaya mulkiilaha Mansoor Hotel Cabdiqaadir Xaashi Cilmi bismillaahir rahmaanir rahiim haddii aan ka hadlo isticmaalka tamarta haddana reer Mansoor waxaanu leenahay siyaasad qeexan siyaasaddu waxa weeye marka u horeysa biyaha lagu meydho kulul in guddiga lagu wada diiriyo tamarta cadceedda taana waanu dhamaynay waanu ka gudubnay tallaabada labaad waxa weeye wixii la yidhi dibadda ama beerta hodheelka ama derbiyadeeda ama gidaarada inaan iyagana ka dhigno tamarta maartay cadceedda bilowgii hore waanu bilownay leerkii hore noo imanaya waxaan filaynaa in haddii alla hado noogu soo gaaraan bis soo socda intayna dhammaanin taa markaan ka gudubno haddii alla yidhaahdo sanadkan gudihiisa weeyaan waxaan hawshan iyadoo aanu qabanay inaanu waxa la yidhaahdo wixii hodheelka gudihiisa ah iyagana ka dhigno maartay cadceedda tamarta solarta cadceedda ku shaqeeyaan haddii alla yidhaahdo taa markaan ka gudubno sanadka haddii la nafta noo daayo waxa weeye inaanu dibadda u saaro waxa la yidhaahdo wixii masaajida ama madaarisa aanu siina laydh bilaasha inaanu u bedelno solarka cadceedda taa markaanu ka gudubno haddii la yidhaahdo dadka waxa naga iibsadeen maartay maxamiisheeda ah inaan iyagana u gudbino solarka haddii ay dee markaa noqoto tamarta cadceeddu ay saa ku najaxdo wixii dadka laga qaadayda waxa way yaraanayaan waxay noqonayaan macquul ah maxaa ku baxa maxaa adeeg ku baxa xisaab baa loo sameynaya marka haddii ala taa dadka ku dhibameena iyadoo ku dhigay waan waxyaalan doon marka waxa weeye waa istabajoogaas ayaan qowlaba saddex ku shaqeynaynaa waxa jira shirar balbalaaran la qabo oo aan maartay inta badan anagu aan ka qayb galnaa ama aan loo yeerinba laakiin anagu nidaamkaygu waa dhisan yahay maaha maartay boodi iyo maartay baahi urursi iyo waxyaalaha inkaas kala kulmo waxaan qabsan karno ayaan ku talagalaan ku qabsanaa halkaas aan tamartayda kaga baxaya haddii aan u gudbo xagga maartay dalxiiska oo iyada maartay aad aragtay inaan dadku maartay ama dawladduba ayna culays badan saarin ama meeyarada magaalooyinkuba ayna culays badan saarin halkaa lacag badan baa ayaynu inagu seegtaa haddaynu Soomaaliland nahay adduunyadu dowlado badan ayaa dhaqaalahooda inta badan ay tahay maartay dalxiiskana inaynu xoojino waa laga maarmaan annagu haddii aan reer Mansoor nahay taa ku dheeda siyaasad baanu ka leenahay waxa weeye dalxiisku laba shay muu yimaadaa nin maartay dabaal iyo maartay bood cusub iyo dhul cusub doonaya inuu ku arko iyo nin u yimaada dhegdhegaysi siyaasadeed iyo dhaqaale wuxuu yahay labadaba waxaan dabcan inaanu maartay aanu iyagana daboolno hargeysa marka la dhaafo dadku wuxuu badanaa u baxaa dekada berbera waxaanu ka sameynay hodheel wanaagsan qaboojiyaashiisii leh oo maartay si wanaagsan u socda ugumanaan talagelin inaanu lacag badan ka sameyno waxaan ugu talagalay inuu isbixiyo muddo dheer ayaa maartay aan ka sugaynay inuu maartay isbixiyo alxamdulilah rabbil caalamiin inuu ugu dhaqaaqay laakiin weli haddana maartay meelaha qaarkood waa laga yarkabkabaa waxaan markaa ugu talagalay dadka imanayay meel qabow seexdaan meel wanaagsan ku dabaashaan inay intaba helaan waxa yimid qolooyinka oo iyagu yiraahdo waxaan jecelahay inaanu aragno kalluunka ku nool badda hoostiisa kuwaasna waxay u baahdeen markaa in dooniya loo kireeyo in meel hoose qalabkii ay u baahnayeen oo dhan loo soo diyaariyo ka talaabaanu ka qaadnay
markii hore bad talaale intaanu ka qaadno ayaanu geyn jiray dekada meel ku dhow oo kalluunku isku dhalo tii waxay keentay dhibaato yar haddii doonidu ay ku cadiranto badda cid u gurmataa ma jirto meeshii marka halkaan sumcad xumi ka keeni lahayn waxay noqotay inaan maartay wax kale aan u bedelo sida aawadeed ayaan u sameynay dekad yar oo ku dhow meesha kalluunku isku dhalo oo baddana ka fogeen halkaa nabadgelyadeeda waxaa u xilsaaran qolada ka mas-uula dowladda dekada Berbera annaga wixii kolba maaragtay gunee loo baahdo ayaanu samaynaa dadka meesha shaqaynaya laakiin xilkeedu anaga nama saaro wuxuu saaran yahay xilka dowladda maaragtay qolooyinka haya dekada Berbera xilkeeda taasi markaa waxay weeyeen inaanu laba dooyood soo iibino dekad samayno dekada kharash badan baa naga galay hay-ado badan baa kolkii soo koray meeraan yidhaahda yaa bixiyey waxaan yarkaa qaaweyna meeshaa fadhi cagaagan unbaa laba dhagax saaray intaasay ku dhisantay meesha gebigeeduba yaa waa niyad weyn ee maaha adduun badan ma baahna maskax iyo waxay u baahan tahay dekadaasi markaa waxay noo suuragelinaysaa dadka dalxiiska imanaya daneynaya inay kalluunka daawadaan inay dooniha fuulaan inaanu geyno halku isku dhalo inay arkaan haddii si allaba badan doonidu ay halkaa badda ku xumaato inuu qofkii soo dabaalan karo oo noloshiisa cabsi ayna gelin ayaan iyadana ugu talagalay ta kaleen doonayna waxa weeye jaamacadda maaragtay Berbera ku taala ee badda inaan iyagu dhowxin wada yeelano marmarka nooga baxdaan kaalmooyin meelaha qaarkood aanu gaarsiin karo wixii waran heli karaan siino qofka noo imanaya la shaqayn karayaan inaan isbarno waxyaalo badan baan iyaga qudhooda haddii alla yidhaahdo aan leenahay waad la qaban karaysaan haddii alla yidhaahdo waxaa kaloo ku tala jirna haddii alla yidhaahdo inaan dalxiiska xoogeyno oon ilaa maaragtay saylac dooniya ku geyno ay soo maraan xeebeena soo daawadaan waxaynu hayna arkaan ay arkaan dhulka baraa badan ee maaragtay quruxda leh ee la daawan karo marka lacag baa kasoo gelaysa dalka airportka lacagta kasoo gelaysa qoraya lacaga dalxiiska horkacaya ee maaragtay wasaaradda dalxiiska imanaya ayaa lacaga waxyaalo badan baa kasoo geli kara dowladda taaqudheeda in loo yeesho oo gacan fudan loo sameeyo ayaa loo baahan yahay waxa kaloo loo baahan yahay in dalxiiska dalka gudihiisa la xoojiyo oo magaalo ilaa magaalo laga tegi karo magaalo laga tegi karo dadku socon karaan haddii alla yidhaahdo Berbera sanadkan haddii alla yidhaahdo waxaan ugu talagalaynaa inaan samayno meel lagu dabaasho weyn oon ugu talagalay dumarka iyo carruurta dumarku intay tagaanba iyagoo aan dabaalin meesha baddu ay taagnaadaan xataa kursi ay ku fadhiistaan ma helaan marka hawlahaas waa hawlo aanu anagu arkaynay in badan aanu dowladaha hoose ka wada shaqaynaynay oo loo arkayay malaha anagu inaanu maaragtay damac aynu kaga jiro meesha laakiin baahi meesha taala inay tahay ayaa inta badan looda arki jirin alxamdulilah rabbil caalamiin meeyarka imika jooga aad iyo aad baanu wada shaqaynaa waa isku aragti baanu ka nahay halkaa wax laga qabo la daboolo waa laga maarmaan marka waxaan ku talagalnay haddii la yidhaahdo bad talaale inaanu ka samayno meel weyn oo dumarka iyo carruurta u xidhan oy ku dabaashaan oy maaragtay raaxadooda ku qaataan oo tartanka adduunyada haddii loo baahdo marka qaarkood ay ka qayb geli karaan dabaasha adduunyada oo in horumar ka samayn karno in magaalooyinka loo kala socon karo oo laga iman karo magaalooyinka maaragtay ka yar fogtahay baddu dabeedna Berbera la yimaado tasiiraad aanu samayno baabuurkii qaadayay wixii gorayay wixii oo dhan dalxiiska qudhiis ay maaragtay meesha gacan ku yeeshaan oo nala shaqeeyaan ayaan iyadana ku tala jirnaa haddii la yidhaahdo labada qorsho ayaa horta sanadka noogu weyn waxaanu qabanayna haddii la yidhaahdo ganacsiga ajnabiga waxaa nooga qorsaa Berbera waxaanu ka samaynay warehouse weyn kaas waxaan ugu talagalnay in alla ninkii ajnabiya ee alaabta laga doonanayo Dubai alaabta Dubai laga doonanayo keeni kara Berbera ku iibin kara sicirka Dubai lagu iibsanayo Berbera ku iibinayo inta alaabta uu iibinayo inaan lacag ka qaadano meeshaas ay bilaash u ahaato waa inta la samaynayo freezer haddii la yiraahdo waan ku sii samaynaa dowladda haddii la yiraahdo freezer maanta la yimaadeen dana laga weerayo xilban masaar laakiin dadka horeysa ganacsatada walo ajnabi waxaan ugu ballan qaadaynaa xiriirna aan qaarkood la yeelanayba in alaabta Dubai laga doonanayo Berbera laga helo oo sicirka Dubai lagu helo oo qofkii Soomaaliyeed u dhoofayay ee doonayay in wax soo iibsado sicirku Dubai ku iibsanayo Berbera kaga helo anaguna ninkaasi aanu siino dhul bilaasha oo inta iska deganaado oo waxba ka qaadan haddii uu bixin karo ninka ilaalinaya wajbanka ahlan wasahlan hadduu bixin karo waan anaa ka bixin dhibaatadaasna ma jirto taasaan iyagana doonayna haddii alla inaanu qabanno annagoon cidna u sheegin dowladna u sheegin waajib anagana saaran inay tahay doonayna inaanu gudano ayay ka mid tahay taasi waxaa jecelahay inaan maaragtay hadalkayga kusoo gunaanado dalkeenu aad iyo aad buu dhismaya xoog buu socdaa
haddii aanu soo qaato maaragtay diiwaan gelinta waxaad arkaysaa inuu aad iyo aad heer wanaagsan uu u marayo sababtu waa maxay dadka hawsha wada ayaa dad cilmi u leh ama caruurta inamada hablayo wiilasha maaragtay gacanta ku haya wax ama maamulayaasha dibadda si kasta u dhacdo kolkaad aad iyo aad hoos u eegto waa wax aad iyo aad loogu farxo waayo waxaad arkaysaa aqoonteennii dhismaheennii inuu sare u soo kacayo haddii aad u fiirsato xagga siyaasiyiinta waxaad odhan kartaa markii xisbiga kulmiya iskala reebreebayey habkii wax loo qaadayay hoolka loogu jiray iyadoo qudheeda waxaad arkartaa maaragtay in bisayl meeshii soo socdo inkastoo weli meelaha qaarkood yacood ay yar tahay laakiin haddana maaragtay bisayl wanaagsan ayaa soo socda waxaan markaa kula talin lahaa dadka qurba joogga dibadda ku maqan dalkeenna isha ha lagu hayo wuu soo korayaa maanta wixii yaallay berri waxay noqon doontaa waxaan qaadi karaynin isha ku qabda inagu dalkeenu sugaya inaga wax badan dhisan karra dekedaa yaroon meeshaa ka samaynay dad badan oo NGO yaana soo mara yaa dhisay imsa hay-adood baa dhisay war hay-ad marsi anagaa dhisnay waa dalkeen inaynu inagu wax qabsan karno waa in la arkaa xalay ayaanu qolo wada cashaynay ajnabiya qof baa su-aal weydiiyey wuxuu yidhi shirkad baan ka mas-uulahay alaabta keenta alaabta beeraha lagu qodo kow amaah iyo waxaasaanu bixinaa waxaan anoo kelmadda amaha meesha waan ka saarayba maxaan qabsan karnaa waanu ka hadalnaa xabad xanjaa haddaad calisa meel baad ku dhijinaysaa maalinta dambe xabad kale xanjaa calisana meesha agteedaad ku dhijinaysaa saasaan wax ku dhisnaa baanu nidhi waanu ka saaray qaamuuskayga amaha wax la yidhahdo maxaanu qabsan karnaa maanta waanu ku dhaqaaqna berri maxaan qabsan karnaa waan ku dhaqaaqna waxaynu qabsan karnaa aynu ku dhaqaaqno berri bili-aadmi aanu ka baxno dalkeenna waanu dhisi karnaa ugu dhismaya waa idinka arkaya maanta ay u socoto maaragtay diiwaangelintu aad iyo aad wax loogu farxo weeyaan marka dalkeenna aanu soo dadaalno aynu wax qabsanno